haddii aad rabto inaad kombiyuutarkaaga ku xirato lock ama password waxaad marka hore soo furanaysaa qaybta settingska oo aad ku soo furan karto adigoo isla qabanaya keyboardka keyga windowga loo yaqaano iyo I kadibna waxaad ka tagaysaa oo aad kali ku siinaysaa halka ay ku qoran tahay accounts kadibna sidebarka waxaad ka dooranaysaa sign in options kadibna optionska ku soo baxaya waxaad ka dooranaysaa optionka ay password ku qoran tahay markaad kali ku siiso waxa ku soo baxaya button ay add ku qoran tahay kadibna click ayaad ku siinaysaa click markaad ku siiso waxa ku soo baxaya form aad ku buuxinayso passwordka aad kombiyuutarkaaga ku xiranayso godka new password ay ku qoran tahay waxaad gelinaysaa passwordka aad rabto inaad kombiyuutarkaaga ku xirato godka confirm password ay ku qoran tahay sidoo kale waxaad mar labaad gelinaysaa passwordka godka password hint ay ku qoran tahay waxaad gelinaysaa waxa aad ku xusuusanayso haddii aad ilowdo passwordka aad hadda gelisay kadibna waxaad leedahay oo aad kali ku siinaysaa batoonka ay next ku qoran tahay kadibna finish ayaad leedahay finish markaad tiraado haddii aad tagto qaybta log screenka waxaad arkaysaa kombiyuutarkaaga in uu log kugu xiray